Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan idinkala soo hadlaynaa waa barnaamijkeenii ama muuqaalkeenii aanu ku baranaynay koorsaha luqadda Ingiliishka ah. Caawa waxa uu ku saabsan yahay waa grammar, sidii hore aan idinku ballan qaadnayba. Waxaa la yidhahdaa basic English grammar, aas-aaska naxwaha Ingiliishka ah. Grammarka la-aantiis waad aragteen ardayahay dhammaan intana maqlaysaa intaa wada naga daawanaysaa dhammaanba. Grammarka waa muhiim. Ingiliishka waxaa aad muhiim u ah waa grammarka. Grammarka haddaadan fahmaynin, aadan ka siinin luqadda ku hadalkiisa way ku dhibaysaa. Qoraalkaada xataa markaad report ama waxyaalo badan markaad diyaarinayso aad uu ku dhibaya. Taasi marka waxaa la rabaa inaad fahanto marka. Must waxaan ka hadlaynaa caawa must and can't. Must waa inaan ama wax waajib ah. And can't waxaas aniga ma karo. Ma awoodo. I must go to school every day. Waa inaan aada iskuulka maalin walba. I must wash my face daily. Maalin kasta waa inaan dhaqdaa. I must waa inaan waa dhihi kartaa haddana. I must do it waa inaan sameeyaa waxaas. I must do it waa inaan sameeyaa. I must believe Allah and His Prophet Muhammad, peace and mercy of Allah be upon him. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa I must waa inaan believe waa inaan rumeeyaa Allah Ilaahay subxaanahu wa tacaala and His Prophet Muhammad iyo nabigiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Peace and mercy of Allah be upon him waa English ahaan waa. Study baro this example tusaalahan baro. Study baro this example tusaalahan baro. My house is very near the motorway. My house gurigeygu is very near aad ugu dhow yahay. Wuxuu aad ugu dhow yahay the motorway, wadadii ay marayaan baabuurta ama gaariga wadadii marayaan aad ugu dhow yahay gurigeyga. My house gurigeyga is very near aad ayuu ugu dhow yahay the motorway, wadada oo baabuurta ay marayaan ama gaariyaasha ay marayaan ama gaariga uu marayo aad ugu dhow yahay. It must be waa inuu ahaadaa marka gurigii very noisy, mid aad u shanqar badan, mid aad u qayl badan. Noisy buuqa leedahay qaylada. It must be waa inuu ahaadaa marka very mid aad noisy oo qayl badan, dhawaaq badan, shanqar badan leh. You can use waad isticmaali kartaa mustida to say that inaad dhahdo taas inaad dhahdo. You believe waxaad aaminsan tahay something shay aad aaminsan tahay shaygaasoo is ah certain wax dhab ah oo xaqiiqo ah. You can use waa isticmaali kartaa mustida to say that inaad dhahdo taasi. You believe inaad aaminsan tahay ama aad rumaysan tahay something shay iskaasoo ah certain wax xaqiiqa oo dhab ah oo jira. Tusaale marka you have been traveling all day. You must be tired. You have been traveling waad safraysay all day, maalintoo dhan aad safar ku jirtay. You must be tired waad daashay marka waad daashay. You must be waxaad ahaatay tired mid noogay waad daashay. You have been traveling waad safraysay all day, maalintoo dhan aad safraysay aad safar ku jirtay maalintii oo dhan. You must be waa inaad ahaataa tired waa noogtay marka waa noogtay. Safarka waa aragto safarku waa dhib badan yahay. Safar qofka markuu waa dhib badan yahay. Travelingka aad uu dhib badan yahay. Waa la daala waa la noogaya. You must be hard worker. You must be waa inaad ahaataa hard worker mid shaqaale adag ina ahaato. Otherwise haddii kalena caasho must be waa inay ahaataa caasho. Must be waa inaad ahaataa hard worker mid shaqada adag ah oo shaqaale adag ina ahaato. Otherwise haddii kalena
she will fail way ku dhici doontaa the exam imtixaanka way ku dhicaysaa haddii shaqadeeda adkaa weyso ee dadaali weyso way dhicaysaa haddii kale otherwise haddii kale fail dhicitaanka waa I am sure waan hubaa deeqo give me waxay isiisay her phone telefoonkeeda I am sure waan hubaa deeqo give me inay isiisay gabadhaas deeqo her phone telefoonkeeda telephone numberkeeda isiisay I must go inaan la aadaa id iyadii somewhere meelo inaan la aadaa meel inaan la aadaa waa inaan meelo la aadaa mustad arag adeegeeda you must be joking waad ila kaftamaysaa adiga you must be waxaad ahaatay joking mid kaftamaya kaas wuxuu ahaa must I must pray 5 times daily I must pray 5 times daily I must pray 5 times daily maalin kasta waa inaan dukanaa salaada waajibka afaral noo ah you must be joking waad ila kaftamaysaa can't idan waxaa leedaha waxaadan kari karin hees americana jiro la yiraahdo I can't power elada gabadh I can't power waa hees american fiiri ma doon inay taa umalaynaa weliba I thought that taasaa umalaynaa waxay leedahay I can't power ma awoodi karo marka can't maxaa waxaadan kari karin waxaadan awoodi karin waxaadan qaban karin we can use waan isticmaali karnaa cantida to say that inaan dhahno is not waxaan ahayn possible macquul waxaan ahayn we can use waa isticmaali karnaa canti to say that inaan dhahno taas is not waxaan ahayn possible logical eligible waxaan macquul ahayn ayaa loo isticmaala iyada cantida tusaale aan qaadano you have just had hadda ayaa waxaad cuntay lunch cashadaadii ayaad cuntay you can't be ma noqon kartid hangar mid baano already mar horeba ma baanin baadi ilaa maraa socontay you have just had hadda ayaa waxaad soo cuntay lunch qadadii you can't be ma noqon kartid hangar mid gaajaysan already mar horeba I have just eaten hadda ayaan soo cunay a meal raashin badanaan soo cunay hadda I have just eaten haddaan soo cunay eaten waa eating ma aha eaten I have just eaten hadda ayaan soo cunay a meal raashin soo ahaatee I can't be hungry ma baahnaan karin we can't power to do it we can't ma awoodi karno we can't power ma awoodi karno to do inaan qabano it waxaa sii wa un wax un we can't power ma awoodi karno to do inaan qabano inaan sameyno it waxaas he can't swim asaga ma dabaalan karo they can't do ma sameyn karaan this math xisaabtan ma sameyn karaan they can't do ma sameyn karaan this math xisaabtan she can't have got ma aysan helin my message dhambaalkeygii ama fariinteedii weli ma aysan helin she can't have got ma aysan helin my message fariinteedii ma aysan helin I can't find ma heli karo my umbrella daladeedii ma heli karo can't waa kaasaasoo la isticmaalaa iyo must iyadoo basta aanu arki doonaa insha allah waa in waxaan sii wadi doonaa grammarka insha allah casrooyin kale xiis waa sii jiraan oo aad xiis u leh marka waxaan leeyahay dhammaantiina aadan idinku mahadinaya sida wacan aad noogu socotaan iyo sida wacan aad noo dhegeysataanba ilaah khayr ha nii siiyo hala dadaalo ingiliishku waa luqad iska fudud wuxuu yahay male waa la baran karaa wax walba la baran karaa marka wuxuu u baahan yahay dadaal u baahan yahay hala dadaalo hala akhriyo wixii oo ni wadis wixii ku dhaway commentiga please noogu soo qora in asxaabta nagu cusub waxaan leenahay noo share gareeya asxaabta cusub waxaan leeyahay subscribe noo saara like-taana ilowna like-ta waa dhiirgelinteena sidoo kale in follow noo dhaha bagga aan ku leenahay facebooka iyo tiktokaba
si asxaabteena kale ay la socdaan noona sheer gareeya. halkaasaan ugu baxayaa. mahadsanid dhammaantiina. allah khayr ha idin siiyo. kulan wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.